ra'iisul wasaaraha dooran ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamza Cabdi Barre ayaa maanta hortagi doona xildhibaanada golaha shacabka ee Soomaaliya kuwaas oo maanta ku shiri doona xaruntooda Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho. kulankan ayaa maanta xildhibaanada waxa ay codka kalsoonida ama diidmada qayaxan u qaadi doonaan ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre kaas oo toddobaad ka hor xilka ra'iisul wasaaraha ee waddanku u magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud. kulanka maanta xildhibaanada ayaa la filayaa in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo codka kalsoonida u weydiiyo xildhibaanada golaha shacabka ra'iisul wasaaraha dooran kaas oo ka hor imaanshihiisa xarunta kulamo la qaatay dhammaan xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya inkasta oo ansixintiisu ay gaar u leeyihiin xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya sida caadada Soomaalidu ma jiro ilaa iyo haatan ra'iisul wasaare la magacaabay kaas oo codka kalsoonida ka waaya golaha shacabka ee Soomaaliya hayeeshee waxaa la filayaa in maanta xildhibaanada golaha shacabka ay codka aqlabiyad la ku ansixin doonaan ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre kaas oo deegaan ahaan ka soo jeeda maamulka dowlad goboleedka Jubbaland. ansixinta kadib ra'iisul wasaaraha cusub waxaa la filayaa inuu baarlamaanka u jeediyo khudbad dheer kaas oo uga dalbanayo in xukuumad uu soo dhiso isla mar ahaantaasina ay noqon doonto xukuumaddiisu mid danaha dadka Soomaaliyeed ka shaqayn doonta. waxaa la filayaa sidoo kale ra'iisul wasaaruhu in muddo 30 cisho kadib ansixinta xildhibaanada golaha shacabka inuu ku soo dhiso xukuumaddiisa taas oo la filayo inay wax ka qabato arrimaha ay ugu horeeyaan abaaraha oo waddanka waqtigan si weyn u haya. ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre ayaa ah ra'iisul wasaare ka soo jeeda dowlad goboleedka Jubbaland waxaana uu noqonayaa siyaasi ka soo baxay isla mar ahaantaasina dib looga soo unkay xisbiga uu ka tirsan yahay ee UPD kaas oo talada waddanka ku guuleystay. Xamza Cabdi Barre ayaa haatan waxa uu xilka kala wareegaya Maxamed Xuseen Roble kaas oo doorashada waddanka ay tahay qodob weyn oo si weyn loogu xasuusan doono muddada uu joogo xafiiska. horey uma aysan dhicin in ra'iisul wasaaraha ugu horeeya ee la magacaabay ee dowlad walba oo cusub iyo in madaxweynuhu waqtiga ay wada dhameystaan hayeeshee waxaa dadka yaqaana Xamza Cabdi Barre iyo Xasan Sheekh Maxamuud ay sheegaan inay yihiin laba shakhsi oo si weyn isugu weyn xagga siyaasadda iyo wada jir ahaanba maadaama ay yihiin dad in muddo soo wada shaqeynayay. waxaase la sugi doonaa inay sii wada shaqeyn doonaan ra'iisul wasaaraha cusub iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Xasan Sheekh Maxamuud. ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre ayaa looga fadhiyaa in xukuumaddiisu ay hindiso qodobo wax looga qabanayo arrimaha abaaraha dib u kabidda maaliyadda waddanka ammaanka iyo sidoo kale isku xirka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka kuwaas oo muddaba uu khilaaf ka dhaxeeyay gaar ahaan dowladdii hore ee madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. haddaba daawade sidee ayuu noqon doonaa kadib ansixinta ra'iisul wasaaraha cusub xiriirka ay yeelan doonaan ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha jamhuuriyadda ee magacaabay fadlan aragtaad ma qurb qaybta hoose ee warbixintan.